مسؤوليين شركتها هي العربية يا توبا يا دولمات توصل قاعد سغاشن قف ورير سوماليلاند بشا بركيسن رمضان كسو عمريسن iyo dhulka barakeysan Madiina Munawwara iyo xaramka duulimaadkan ay soo kordhisay shirkadda Al-Arabiya ayaa in markii hore ay dadka cumreysan ku degi jireen Jidda halka iminka si toos ah ay u degi doonaan magaalada Madiina oo wax yar u jirta dhulka barakeysan ee xaramka waraaci saddexaad ee duulimaad toos ah ka amba baxay garoonka diyaaradaha iyagoo sii jeeda dhulka barakeysan xaramka waxaana fududeysay shirkadda Al-Arabiya iyo Atoba Travel waxaana kamid ah dadka soo cumreysan iyo wasiirada wasaaradaha horumarinta maaliyadda Maxamed Yuusuf Cabdi iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland Cabdillaahi Abakar ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay duulimaadkan tooska ee shirkaddu ay sameysay ku soo cibaadeysanayaan umrada bisha Ramadaan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland Cabdillaahi Abakar ilaahay waa mahad leh maanta oo ay tahay 16 Ramadaan kuna beegan كودي جون لبكون يو شديد طبعا هنقول بحنا عمره وزير كمالية دو هذه ألبان فنتي وقوم هنقلنا ديارة العربية إيو رافل أجنسي كتوبة قصور تقليه نانو ستوصل لوجا دجو جدة إيو مدينة إلى هنا نكرر جينا نانو إلى هنا أقبله عماشانو بحينه dhinaca kale ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay Kayse Jaamac Daawud madaxa iibka shirkadda Al-Arabiya wuxuuna tilmaamay dadaalka ay geliyeen in duulimaad toos ay shirkaddu kaga qaado garoonka Hargeysa iyagoo toos ugu dajinaya Madiina madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii isaguna waxa weeyaan mudan loo mahadnaqo shaqaalaha airportka oo iyaguna waxa weeyaan si hufan oo waxa weeyaan sidii loogu talagalay ugu shaqeeyo dadka runtii waxaan ku faraxsanahay maanta oo dirayno waxa weeyaan difaacaddii saddexaad waxa weeyaan oo ka baxday Cigaal International Airport waxa weeyaan si joogto ah diyaaraddu u timaada wiigiba 2 jeer waa Hargeysa Shaariqa waxa weeyaan waxaanu difaacaddii saddexaad u leenahay waxaanu qaadnay difaacaddii saddexaad ee cimrada annaga iyo Toba Travel Agency oo runtii aan uga mahadnaqayno wada shaqaynta wanaagsan ee naga dhaxaysa annaga iyo Toba waxaan wada bilownay cimrada si hufan ayaan ugu adeegnay dadkii Soomaalida ahaa ee tagay cimrada waxaana si wanaag ah inay noqotay markii ugu horeysay ee waxa weeyaan dadka intay halkan ka baxaan mu'tamariinta aho ay toos u tagaan magaalada Madiina ee barakeysan weeyaan waxa raacay mas'uuliyiintii qaranka oo maalin walba raaca diyaaradda wasiirka Cabdillaahi Abakar ee wasiirka gaadiidka iyo wasiirka maaliyadda maalin walbana waxa raacay mas'uuliyiinta iyo culimaadiinta iyo waxa weey ahlu sharafka dadka Soomaaliyeed Baaslaan Cabdi waa mas'uuliyiinta shirkadda Toba Travel oo dadaalka badan iyo hawsha iyaguna door ku lahaa ayaa tilmaamay meelaha ay ugu tala galeen iyo adeegyada ay u qabanayaan dadka soo cumreysanaya bisha barakeysan Ramadaan dadka mu'tamiriintii iyadoo ay tahay markii ugu horeysay ee mu'tamiriinta Soomaaliland ka baxaya ay toos uga degaan magaalada barakeysan ee Madiinatul Munawwara waxa farxad gaar ah oo maanta groupka ama dafcada maanta baxaysa inay ku jiraan mas'uuliyiintii qaranka ee wasiirada labada wasiir Cabdillaahi Abakar wasiirka gaadiidka iyo wasiirka maaliyadda Mudane Yuusuf oo ku jira dadka mu'tamiriinta ah ee aan u sameynay umrada oo maanta raacay diyaaradda Al-Arabiya diyaaradda Al-Arabiya oo sidoo runtu tahay si habsami leh oo qurux badan ugu adeegaysa dadka u socda beedka Ilaahay oo si habeen iyo maalin heegan u ah oo si xaraga loogu shaqeynaysa mu'tamiriinta ayaa dafcadii saddexaad maanta qaadaysa waxaan noo haray faleedkii ugu dambeeyay oo insha Allah tacaala aan rajeynayno 20 Ramadaan oo maalinta salaasada ah inuu ka bixi doono madaarka Cigaal International Airport aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa diyaaradda Al-Arabiya